wixii ka dambeeyay shantii subaxnimo ee maalintaasi waxa ciidamada Sacuudigu ay soo buuxiyeen goobta loo yaqaan Abu Samra iyo inta ku xeeran iyagoo dusha ka ilaalinaya saraakiisha fulinaysa inqilaabka isla mar ahaantaasina ay wehelinayaan maleeshiyaad ka tirsan qabaa'ilka dega halkaasi kuwaasi oo loogu yeedhay guutada sideedaad ee magaca fulinta inqilaabka way jirtay oo waxa dhacday anaga dushana laga ilaalinayay balse shanta wixii ka dambeeyay waxaan la sheegay in amaankaygu khatar ku jiro xaaladuna ay sidoo hore iska bedeshay marka waxaan la sheegay in aad isku ilaalino oo aan la socono xaaladeeda iyo sida wax u dhacayaan dhabahaanta aniga qudheeda Sheekh Khalifa ayaa igu yiri waxaan ka cabsi qabaa Sacuudi Arabiya arrintan inaga baxaan Amiir Sultan in qudhiisu inaga baxaan ka baqanaya waanu isoo bandhigay laakiin waxaan isku daynaa dejiyo wixii inta ka dambeeyay waxa iyaguna sidoo kale iyagoo wata diyaarada ciidamada cirku leeyihiin ee dalka Bahrain ayna saarihiin xubno kamid ah ciidamada cirku waxa ay soo degeen galbeedka magaalada Dawxa ee caasimada Qatar goobta loo yaqaano qiiqa naftada halkaasi oo ay muddo ku sugnaayeen iyaga oo wada muuqaalo iyo codad la soo duubay oo laga duubay xubnihii hogaaminayay inqilaabka sida Sheekh Khalifa dhabahaantii waan ku jirnay muuqaalada oo qeyban ka ahayn duubitaankeedana waan ogaa aniga ka jaabir ahaan waan la socday oo xubnaanka ahaa markii la duubayay warna waan ka hay fahad ahaan anigu waxaan ahaa ninkii duubay muuqaalkii koowaad ee Sheekh Khalifa ka duubay Xamed bin Ciisa ayaa nagu taageerayay oo markaa ahaa amiirka Bahrain waqtigan hadda haya xukunka isagaana nagu taageerayna duubno muuqaaladii koodana duubay kuwa labaad qudheedo qorsheeyay كوستحق له نيكي قريب عنها dhabahaan ninkii qoray baan ahaa marka muuqaalkan qayban ka ahayn duubiteeda iyo qoraalkeeda marka ninkii qoray aan ahaa hadana muuqaalada duubidooda iyo marka la eego ka qayb qaadashadooda qabanqaabinta qudheeda qayban ku lahaa oo aniga ka howlgeliyay samar ahaantaasina isku xidhayay muuqaalada duubidooda iyo habeentooda gacantana ku ay markii dambe ku wareejiyay xubnaha Bahrain إلا مركي أنكو ريتشي عيامات البحرين أي قاعد تكوهي يو حبناها هو كميدي هاي أمريكا وقتي يعني حامد بن عيسى إيجا أنا هوش اللي هو داقي مركا حبناها كلا أما أنا لا شقينيا أمرنا كلا كسوعدا أديك دوركاكم هوها كجابرهان أدخل هاي مقالة يطوبستا أنا دوركيكو هوها in aanu isku xidho muuqaaladan sidoo kale wadoogeedo waxaan qayb ka ahaa dejinta khadka lagu galayo meeshan iyo qorshaha loogu talagalay inaan ku galno marka muuqaaladan qudhooda qayb baan ku lahaa laakiin waxaan ahaa inta ugu badan ninka dejinaya systemka loo galayo anoo ka soo galay dhanka Sacuudi Arabiya dhankooda waxa iyaguna qayb ka ahaa ciidamada cirka ee dalka Imaaraadka Carabta iyagoo soo buuxiyay xuduudka u dhaxeeya Qatar iyo Imaaraadka Carabta ee waqtigani waxaana ay wateen qayb ka mid ah diyaaradaha cirka oo aad moodo inay muujinayaan dawladus la doonaya lagu soo galo Qatar Imaaraadku qaybtoodii way diyaar garoobeen oo Sheekh Khalifa ayaa qaar ka mid ah Suudaanka war khaldan siiyay oo sheegay in inqilaabkii guuleystay marka halkaas uu isna doon ka soo duulo oo halkaas ay Imaaraadku diyaar ku ahaayeen iyaga qudhoodu waxay doonayeen hadii aan u baahano in dhanka cirka naga caawiyaan Imaaraadku qudhoodu qayb ay ka ahaayeen oo diyaar bay ahayd xoog iyaga oo waa kuwan soo buuxiyay xuduudka oo ka shaqeynay marka yaa Imaaraadka horkacay waxa horkacay Sheekh Said أميركا وقتي أساسي إمارات كمية أميركا أساسي إمارات أيه هوركا عي قيبنا كها هوشاني حلي اللي سوغيو صعب انتي جارشا سانتو الصبح نمو waxaa si degdeg ah isku bedelay xaalka 2 saacadood ka hor oo ku beegan 3:00 subaxnimo ee waqtigaasi waxa la soo rogay xog ay heleen xogta qaybta sirdoonka ee Qatar xaalad degdeg ah iyadoo lagu wargeliyay dhammaan ciidamada iyo saraakiishii fasaxa ku maqnaayay oo diyaar garoobay ciida in ay soo galaan xaalad degdeg dib u keentay xaalad degdeg oo caadi ah xaalad degdeg ah inay taqaano waan u maleynayaa دواء على رقاق كرنا عدي ماذا حقا دواء لا توكتو إن طبعاً تي أنا ودد
waxaan niman iska fasaxo saraakiil baan ahayn oo ciidan u diyaargarowno qoysaskayaan la joognay amar degdega la soo bixiyay waxaana filin waxaan loo soo sheegay in xaalad degdeg soo korodhay oo soo buuxino goobaha xerooyinkayga run ahaantii waqtigaan qoyskaygaan la joogay amar degdegaana soo gaadhay oo aanan xeryahaygii joogno oo aan tagno anigu waxaa laga qoray goobta loo yaqaano Abu Samra ee xuduudka ku taala dhanka Sacuudi Arabiya taasi ayaa keentay markaan halka adiga ka safiir ahaan dowladda Mareykanka sida xaaladda lagu soo wargeliyay maxaad ka ogid dhabaantii markii ahayd 4 subaxnimo ayaa waxay soo dhacay telefoon waxay soo garaacay Ameerika oo doonayay la kulmo wuxuu yiri si degdeg aan kugu baahanahay kadib waxaan ku noqday wixii jadwalkaygii iyo waqtigii waxaan arkay inaan wax ku jirin oo aanan balansanayn waxaan eegay xarunta horteedii waxaan arkay in dhowr askari oo kaliya joogaan oo ay goobtu maran tahay kadibna waxaan tagay xafiiskan toos ugu galay iyadoo ay jirto wax protocol aan oo la iska daba wareegay xaaladdu qasan tahay waanu kulanay wuxuu ugu yiri waxa dhacay isku day inqilaab laakiin waanu fashilnay kadibna waxa la bilaabay in la xirxiro dhammaan xubnihii looga shaqeeyay lugta ku lahaayeen ama lagu tuhmayay hawshani dib waxaan u baahday ama aanu sheegay inaan ku wargeliyo dowladda Mareykanka si xaaladan gacan uga siiso waanu iga ogolaaday ugu dambeyntii adiga mudane kafaadahan sidoo fashilmay hawshani dhab ahaantii waxay ahayd hawl aan ka soo shaqeynay badan laakiin waxa fuliyay xubin kamida kooxdii fulinaysa inqilaabka ayaa fashiliyay oo ku kacay falkan foosho xun leh waxaana waa xubin shaqeynay inkastoo aan doonaan magaciisa hadda kula wadaago laakiin wuxuu xubin isku arkay inaanu qayb ka ahayn hawshan inqilaabka oo istusay sabab maskaxeed qaldan oo ah in aanu wax dheef ama nasiib ah ku yeelan doonin haddii inqilaabku dhaco xukunkaanu qabsano uu istusay in aanu wax ku yeelanaynin hawl ama in la siiyo wuxuu doonayay macluumaadka aan helay ayaa ahaa in xubin kamida qolada fulinaysa inqilaabku uu soo garaacay xafiiska madaxtooyada kadibna uu sheegay uu yiri waxaan ahay xubin kamida kooxda inqilaabka laakiin ma doonayn inaan ka qayb qaato waxaan doonaynaa si looga hortago dhaqsaa xubinkaasi waxa waa nin ka tirsan safka labaad kaliya waxa uu ogaa Fahad al-Maliki doorka ku leeyahay sirdoonka xubnaha la shaqeynaya hubku goobo ku kaydsan yahay iyo goobaha ay tagi karaan ay nimankan ku baxsan karaan ama suurtagal noqonaysa in ay ku dhuntaan si ay uga badbaadaan qabasho ama gacanta lagu dhigo anigu markii aan hawshan maqlay dabahantii horta waan cabsi bay gashay laakiin waxaan isku dayay inaan markaa nafteeda bal aan eego halka ay ku sugnaan karto waqtiga xuduudka qadar baan ku jirnay kama bixi karin inta badan saraakiishii nala shaqeynaysay ama xubnihii inqilaabka qayb ka ahaa ama ciidamadii fulin lahaaba baqasha gashay oo xataa hogaamiyaashii dib u gurteeno way yar cabsanayeen waxaad mooday in ay wax ku soo kordheen oo dabahantii hawshan ka fajicisay marka taasina mushkilad bay keentay idinka xataa xubnihii imaaraadka ee ka shaqeynaya ama ka qayb qaadanayay diyaar ma u hayeen hawshan fusho marka hore oo qayb ka hayeen dhamaan diyaar bay u hayeen hawshan fusho laakiin baqashada iyo hawsha timi baa keentay in ay kala daadato oo ay suurta gali weydo oo ay macquul noqon weydo oo nin waliba baqdo oo la cabsado dhamaantood nin waliba ay gasho baqasho dheeraada iyo magaranaysa ay cabsi joogta markii uu inqilaabkani fashilmay waxa qaar kamid ah xubnihii ka qayb qaadanayay la soo xiray isla mar ahaantaasina gacanta lagu soo dhigay ibkhiid marzuuq Abdullah waxa uu ahaa nin kamid ah ragga soo xirxiray xubnahani isaga oo soo qabqabtay xukaamiyaasha qarsoon oo kamid yahay Fahad al-Maliki iyo sidoo kale xubno kale oo ku qarsoona gudaha mudane Fahad adiga ka markii hawshan fashilantay maxaad samaysay ama maxaa kula soo gudboonaaday anu dhabaantii waan fadhiistay waan ka fikiray maan baxsana maan dhuma sida ragga qaarkood ay sameeyaan marka hawshan fashilanto laakiin waxaan isku dayay inaan ka fikiro ilaa 10 cisho ayaan joogay gudaha qadar oo aanan ka bixin manaan dhuban Sacuudina ma tagin meel kale ma tagin anoo baasaboorada haysta laakiin waan iska joogay waxaan ka dhursugay intii xaaladdu isbedeli doonto ama si aan wax la qabo raggaan asxaabtanahay ama aan wada shaqeynayno dhabaantii waxay ahayd hawshan iyo hawlan aad uga qayb qaatay oo bil gudeed baan ku soo qabanay ilaa 4 qof oo nimanka ugu caansanaa waa kacaya oo Fahad al-Maliki kamid yahay oo noo suurta gashay inaan gacanta ku soo dhigno taasina fursad bay noo ahayd oo waxaan ku guulaysanay baheed dhabaantii markaa chance bay noo noqonaysay oo gacanta ayaan ku soo dhignay waan noo suurta gashay
mudane barik adiga ka safiir ahaan ma ku kalsoonaydeen xogta qadar ay idin soo gudbisay ee hordhaca ahayd ma ahayd xog lagu kalsoonaan karo ama xaqiiqa may dhab ahaantii may ahayn waxay ahayd mid ka yar inta ay xaqiiqadu leedahay ama waxa meesha ka dhacaya qadar xogta ay heleysay waxay ahayd mid aad u kooban laakiin waxa jirtay in ay arintu inta ka ballaaran tahay oo aanay suurtagal ahayn lagu kalsoonaado xogta la helay ama nala soo gudboonaatay laakiin waxaan isku daynaa inaan ka qiyaas qaadano saxdayaan mudane ka safiir ahaan markaynu ugu noqono dawladdiinu maxay go'aan ka gaadhay laakiin markay loo eego Imaaraadka iyo Bahrain iyo Masar iyo xubnaha qaybta ka ahaa ee Sacuudiga hogaaminayay maxaad ka jawaabteen wixii inta ka dambeeyay anaga markay xogtan soo gaadhay muddo 24 saacadood ku siman ayaa waxaan wargelinay dawladdeedii kadibna dawladdeedii muddo 24 saac kadib waxa ay soo jawaabtay oo soo dirtay warqad ah in aan la faragelin in aan dawladaha khaliijku faragelinin xaaladda ka jirta gudaha Qatar oo aan anaguna ka caawino waxaan ka caawin karnaa masirdoonka ama suurtagal ah ku kala dhigi kara kooxdani gudaha iyaga wixii ka abuurmay gudaha Qatar anagoo ka xumayn una muujinay inaanu garab siino waxaanu khaliijka ku amarnay oo lagu wargeliyay in aanay faragelinin dawladaha waxa ka jira gudahooga ama aanay daandaansi ku sameeynin ama aanay wax faragelina kula kicin si ay u suurta gasho sugnaanshaha iyo in la helo rag ka qayb qaatay amaanka Qatar taasina suurtagal bay noqotay markii dambe markii hawshan fashilantay aniga ka jaabir ahaan waati nala soo qabtay oo hogaamiyaashii intoodii badneed gacanta lagu dhigay oo waan gacantan lagu soo dhigay intoodii badneed waxaana la keenay xabsi ku yaala misla gudaha maxamed ciise qudhiisu qayb buu ka ahaa laakiin marka Bahrain buu ahaa isagu intii hore wuxuu nagu wargelin inaan ka baxno meesha inta aan la qabanin balse haddana sirdoonka oo sareeyay waxa suurta gashay in gacantan lagu soo dhigo muddo bil gudaheeda oo anagu waxaanu islaahin jaaniska ciidda ka faa'iideysto in qalab markaanu fulinay waxaan ciidda ugu soo beegnay si aan uga faa'iideysano waqtiga ciidda iyo fursadda taagan laakiin waxaanu ka faa'iidnay ama dhaxalkayga uu noqday in si degdeg ah loo qabto oo xataa Sheekh Khalifa Imaaraadka ku sugnaa ay ku noqoto kadis iyo waxaanu filin marka idinku ma ku dhanaydeen hawshan oo maalin oo qabtay mise ma inteeda badan waan la qabtay laakiin ma suurta gelin in la qabto dhamaantood shilaadii ku dhacday inqilaabkii 14 bishii Febraayo ee 1996 may noqonin mid soo gabagabaysa xaaladda ka taagan gudaha khaliijka Carabta balse waxay noqotay mid furta bog cusub kaasi oo u baahan faahfaahin dheeri ah iyo in aad ka hesho xog faahfaahsan oo aad ku kalsoonaan karto si aad u hesho taasi 20 sano kadib iyo wax ka badan waxa aad daawan doontaan qaybta labaad ee barnaamijkani wixii ku qarsoon